waad mahadsantihiin warbaahinta dowladda deegaanka Soomaalida sida aad noo ajiibteen codsiga aan idin soo dirnay maanta oo ay taariikhdu tahay 28 bisha tobnaad 2017 waxay noo soo gabagaboobay shirweynaha iyo qiimaynta waxqabadka maxkamadaha dowladda deegaanka Soomaalida ee sanadlaha ah sida aynu wada ogsoonnahay hay'adda garsoorka ee dowladda deegaanka Soomaalida sida ku cad bayaanada iyo dastuurka dalkaba sanadkiiba hal mar waxay qabsadaan ka hor inta aan golaha baarlamaanka fadhigiisa la gaarin waxa ay qabsadaan kulan weyne iyo shirweyne iskugu jira qiimaynta waxqabadka sanadka la soo dhaafay iyo kulan weynaha hay'adda garsoorka ay yeeshaan taasoo ay ka mid yihiin ama ay ka qayb qaataan gudoomiyaasha maxkamadaha degmooyinka gudoomiyaasha maxkamadaha sare iyo mas'uuliyiinta ama gudoomiyaasha maxkamadda guud ee dowladda deegaanka Soomaalida qiimaynta waxqabadka sanadka 2017 aan qabsoonay ujeedooyinka aan uga gol lahayn wuxuu ahaa shaqooyinkii aan haynay sanadkii aan soo dhaafnay waa 2017 ee anagoo ka duulina qorshihiisii maxay noo qabsamay oo guulihii inoo yaalay ama qorshihii aan dhigana maxay noo hirgalay maxaanse inoo hirgelin qodobada aan inoo hirgelin carqaladaha sababay in aanay hirgelin maxaa kamida si aan u ogaano ama aan uga hortagno inaanay 2018 noogu soo noqonin ama si qorshaha 2018 aan qaadanayno aanu gasho ahaan ugu qaadano kuwa ugu waaweyn kaas ay ahaayeen dabcan waxyaabo wanaagsan way noo qabsoomeen qorshaha sidii aan ku wadnay dhan wanaagsan oo fara badan waanu lahayn degmooyin ilaa heer deegaan waxa iyaduna aan meesha ka maqnayn inay carqalada jireen oo maxkamaduhu ay baahiyo badan qabaan cudud shaqaale awgeed waa jiraan baahiyo badan xagga aaladaha casriga oo heer deegaan ilaa iyo heer degmaba laga bilaabo iyadana gaab waa ka jiri karaa xaggaas qodobada nooca iyo kuwa kale oo la xiriira waxa laga yaabaa inay waxoogaa caqabada ay nagu ahaayeen adeegii sanadka 2017 aan soo bixinaynay haddaba qodobada caqabadaha ahaana iyadana waxaanu ka wada xaajoonnay sideen uga gudubnaa 2018 ayaan la tashanaa oo arrimaha waxaan naga qaban karaa wixii anaga gudaha iyaga ka hay'ad garsoor ahaan si aan u soo noqon waa inaan ka qabano go'aan ah waan gaadhnay cidii amaba qodobada kale ee u baahan inaan cid kale la tashanana sida hay'adina fulinta anagoo eegayna xeerarka iyo dastuurka iyo shuruucdu madax banaanida ay u kala dhigeen haddana wada shaqayntu hadii jeer waa laga maarmaan xeerashna way noo dhigayaan marka caqabadaha cid kasta oo ay khusayso haddii hay'adina fulinta tahay haddii hay'adina baarlamaanka ay tahay haddii hay'adaha aan dawliga ahayn ay tahay haddii shacab weynaheennaba ay yihiinna cid kasta oo aan kala shaqayn karayno si arrimaha noocaas aan u dhinno ama aan uga gudubno iyadana qorshe ayaan u qaadanay sanadka 2018 haddii alla ka dhigo dhinacyada iyada jilicsan inaanay soo laaban waa rajo weyn oo aan qabno dadaalkeedana waa geysan doona marka taas ayay ahayd ajendaha kale ee noo raacayay wuxuu ahaa kalfadhigan weyn aan lahayn kalfadhiga hay'adda garsoorka ay yeeshaan kalfadhiga marka aanu leenahay waxa ka qayb gala oo lagu casuumaa maxkamadaha darajada koobaad waa degmooyinka iyo maamul magaalooyinka maxkamadaha sare waa gobolladeena iyo maxkamadaha heer deegaan waliba garsoorka ka shaqeeya intaasi waxay yeeshaan iyaguna golaha amaba kalfadhiga guud ayay ka qayb galaan kalfadhigaasi ajendayaasha aan ku soo qaadno waxaa ka mid ah go'aamo loo baahan yahay inaan iyaga u soo bandhigno oo wax ka taraya ama xawaaraha ku sii daraya dadaalka aan u wadno ee aan ka geysanayno adeega cadaalada ee aan bulshadeena aan u wadno qodobada haddaba ama ajendayaasha aan kalfadhigan kaga doodnay ama kulan weynaha hay'adda garsoorka ay lahayd aan doorkan kaga doodnay waxaa kamid ahaa kow in aan soo jeedinay qabyo qoraal ku saabsan awaamirta ujuurada garsoorka awaamirta ujuurada garsoorka macnaheedu waxa weeye ruuxu marka uu dacwad madaniya furto ee uu maxkamadaheena tago saddexda darajo ee maxkamadaheena kala duwan uu tago dakhli ayuu dowladda u xaraya xeerka xeerinaya dakhligan la qaadayo laga bilaabo wixii ka horeeyay bishii 8aad ee 2017 dal ahaan waxaynu isticmaali jirnay xeer soo baxay xilliyo hore oo aad u raagay oo 40 sano jirayay marka taa waxa la isla gaaday maadaama dhaqaalaha wadanku kordhayo baahiyaha hay'adda garsoorka loo qabo maadaama ay kordhiso tirada shacabku maadaama ay kordhiyeen adeega garsoor ee maxkamadaha laga rabaa kuwii hore ee waaga laga rabay maadaama ay ka duwanaan yihiinba ama kuwa cusub ay ku soo biireen in uu ka jiro goldololooyin xeerka hore ee la soo isticmaalayay marka heer qaran 2017 bishii 9aad agagaarkeedii ayaa xeer cusub oo ku saabsan ujuurada garsoorka la soo saaray inaguna ka dowlad deegaan ahaan hal qodob oo kamid ahaa ujuuro cusub oo ujuurada garsoorka ah oo qabyo qoraal aan ku sameynay ayaan gudoomiyaasha gobolada iyo gudoomiyaasha degmooyinka ee maxkamadaheena iyo gudoomiyaasha maxkamadda guud iyo garsoorkaba aan u soo bandhignay si gashigooda ay uga keenaan iyadana gashi wanaagsan baanu ka helay baan rajaynaynaa xilli aan fogeynaa inaan ansixin doono oo cidda ay khusayso aan horgeyn doono ayaan ku rajo weynahay ajendaha labaad ee kulan weynahan ama kalfadhigan hay'adda garsoorka noo xidhiidha wuxuu ahaa si haddi kadib degmo ilaa heer deegaan aan u qaadano hab warbixin oo isku mid oo siman inaan iyadana formaat cusub oo warbixinta lagu soo gudbiyo aan u soo jeedinay guud ahaan
qiimayntii iyo ajandayaashiiba gasha fiican baanu ka helay kasoo qaybgalayaasha shirweynaheenan iyo fadhigeenan natiijo fiicanna waanu ka helay caqabadahaasna 2018 inaan dhimi doono ama aan ka wada gudbi doono ayaan ku rajo weynahay haddii alla ka dhigo idinkuna waad mahadsantihiin cid kasta oo qayb ka geysatay fulinta iyo qabsoomidda kulan weynahan iyo shirweynahana sida abwaaniinteena fanaaniinteena baamboydeena oday dhaqameedkeena culamo awdiinkeena iyo bulshada kale ay nagu taageertay iyo laamaha dowladda kaleba aad baan uga mahad celinaynaa anagoo ku hadlaynaa afkayaga iyo afka hay'adda garsoorka waad mahadsantihiin